Talooyinka caafimaad ee galmada aroortii. Maalinta dahabka ah. Samaynta galmada subaxii waxay ku siinaysaa niyad sami degan, firfircooni, xasil, feejignaan iyo hindiso. Waxayna ka imaanaysaa samaynta galmada subaxii oo sii deynaysa hormoonka oxytocin oo loogu yeero hormoonka dareen wanaagga. Hormoonkan oxytocin wuxuu ku dareensiinayaa inaad kalgacal cusub u qaadid lamaanahaaga, waxaadna ku jiraysaa xaaladdan dhammaan maalintii oo dhan. Khataraha wadnaha. Samaynta galmada subaxii 3 jeer usbuucii waxay hoos si weyn ugu dhigtaa khataraha istaagga wadnaha iyo istaroogga. Ifka wejiga iyo timaha. Galmada subaxii waxaa la og yahay inuu yahay qurxiye dabiici ah. Wuxuu ka dhigayaa timaha iyo wejiga kuwo ifaya, maxaa yeelay waxaa badanaya soo saarka hormoonada estrogen iyo kuwo kale oo maqaarka lagama maarmaan u ah. Aalmiito dabiici ah. Waa hab wacan oo lagu beddeli karo aalmiitada subaxii shaqada ka hor. Daraasad la sameeyay ayaa lagu xaqiijiyay 1 saac oo galmada subaxii ah inay gubayso ugu yaraan 4 kalooriis daqiiqadii ninka, haweeneydana 3 kalooriis daqiiqadii. Hoos u dhigga dhiigkarka. Hawsha galmada waxay dhammaan ku ilowsiinaysaa walwalka iyo baqdinta. Walwalka iyo baqdintuna waa shidaalka dhiigkarka.